بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وانا wanaagsan ahaantiinba meel kasta aad joogtaan waxaan ileena ku soo dhawaada barnaamijka ugu macdaran taariikhda dalka Soomaaliya qaasatan ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ah taariikhda idila soo sii doona anigoo ah Xuseen Maxamuud Xusayre iyo saaxiibkeena Maxamed Daahir Dulmeedeed kuma dheer master waa iskeli laha magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya qabka loo aas-aasay magaalada ee hadda leedahay ku soo qaadan doona barnaamijka intuu sii socon doona magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya ba dhageystay yaa laga sheekeynay amba yaa lagu faalooni barnaamijka ugu macdarna taariikhda Muqdisho mar walba ku taxnaada dhamaantiin waa ku mahadsantii dhageysigiina magaalada Muqdisho oo hadda caasimadda Soomaaliya aftalyaaniga barisamaadkii waxaa loo aqoon jiray Muqdisho Arabina Xamar ayaa liiran jiray ama Muqdisho qobasade u taqaano magaalada Muqdisho markii dambe waxa isku bedeshay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho waxay ahaan jirtay amba waxay ku taala galbeedka badweynta Hindiya waa magaalo aad iyo aad u qurux badan oo soo jiita indhaha caalamka oo ay badweynta Hindiya kaga wareegsan tahay saddex jiho waxaa magaalada Muqdisho dhidibada loo aas-aasay qarni aad iyo aad u fog taariikhyahanada isku khilaafeen hadana kada kuraysa oo aan ayray ku doonto hadan dibaday ku shago hadan dunimada yeelo dadkeen u soo dagaagay hadana kada kuraysa la aas-aaso qarniga labaad ee milaadiga magaalada Muqdisho waxay ku taala galbeedka badweynta Hindiya waxaa la aas-aasay taariikhyahanada waxay isku khilaafeen in la aas-aasay qarniga labaad ama qarniga saddexaad ee milaadiga Muqdisho waxay ahaan jirtay xarun ganacsi iyo marinka la qaybisa Hindiya iyo Yurub inta aan la qodin kanaalka Suez iyo jasiiradda Carabta iyo heebta Afrikada Bari magaalada Muqdisho waxay ka koobnaa jirtay 6 xaafadood ama 6 tuulo oo ay deganaayeen qabaa'il xaafad kasto waxaa xukumi jiray sheekh xaafadeed waxay lahaayeen golaha odayaasha qabaa'ilka sida qaabka federaalka ah kulmiya dhammaan xaafadahaas loogana tashan jiray arrimaha magaalada qarniga 4aad ee milaadiga magaalada Muqdisho isku bedeshay nidaam ama maamul u eg federaalka Xuseen Maxamuud Xusayre kulanka dhalinyarada magaalada Muqdisho